السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا channelka ku jirta aad iyo aad baad salaamantihiin waa mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkan waxaynu kusoo qaadan doonaa su'aalo aad u muhiim ah oo ku saabsan wax akhriska su'aasha koobaad waxa weeye waa maxay sababta aynu wax u akhrinaa su'aasha labaad waxa weeye waa maxay sababta ay dadka ugu taajirsan adduunka haddana ay u yihiin kuwa ugu akhriska badan su'aasha saddexaad waxa weeye sidee ayaynu isku bari karnaa akhriska ama aynu caado uga dhigan karnaa waxaynu ugu dambeyn soo qaadan doonaa tusaalooyin ku saabsan dadka adduunka ka caanka ah ee weliba hantida leh iyo sida ay wax u akhriyaan maalintooda qaar baa akhriya 2 saac qaar baa akhriya 3 saac qaar baa gaarsiiyay 5 ilaa 6 saac qaar toddobaadkii bay buug akhriyaan qaar labadii toddobaad bay buug akhriyaan okay ku soo dhawaada muuqaalka oo faahfaahsan su'aasha koobaad ee ah waa maxay sababta aynu wax u akhrinaa waxaynu wax u akhrinaa si aynu u horumarino fikirkeenna si aynu aqoon u kororsanno si aynu u baranno wax inagu cusub ha ahaato xog cusub luqad cusub erayo cusub iyo kuwa kale oo badan su'aasha labaad ee ah waa maxay sababta ay dadka ugu hantida badan adduunka ay haddana u yihiin kuwa ugu akhriska badan su'aashaasi waxaynu kaga jawaabaynaa kadib markii ay ogaadeen faa'iidada ku jirta wax akhriska ee ay ka heleen afkaar ay hodan ku noqdaan kadib waxay go'aansadeen inay joogteeyaan akhriska si ay u helaan horumar joogta oo adigu daawade maxaad samayn lahayd haddii aad hesho khasnad dahab ah oo dhulka hoostiisa ku taal ma laga yaabaa intaad in yar ka qaadato inaad iskaga tagto taasi waa maya waxaad samaynaysaa maalin walba waad ku noqnoqonaysaa oo waad qodaysaa si aad u sii hesho horumar joogta ah sidaas la eg akhrisku wuxuu la mid yahay qof qodaya afkaar oo helaya maalin walba fikrado iyo ogaal uu ku noqon karo hantiile saas daraadeed bay waxay go'aansadeen inay maalin walba joogteeyaan si ay isku sii horumariyaan ugu dambeyntiina waxaad ogaataa in qof kasta oo heer gaadhay aanu ku qanacsanayn heerka uu maanta joogo balse uu doonayo heerka iyo heerka sii sarreeya su'aasha saddexaad ee ah sidee baynu wax isku bari karnaa sidee ayaynu u baran karnaa wax akhriska maadaama aynu ogaanay sababaha aynu wax u akhriyayno iyo faa'iidooyinka ku jira wax akhriska su'aashaasi oo ah weliba ta ugu muhiimsan ee inaga anfacaysa waxaynu kaga jawaabi karnaa 4 qaybood oo muhiim ah 1 ku celcelin 2 joogtayn 3 fahan iyo la saaxiibida asxaab wax akhrida oo ah qodobka ugu dambeeya wax kasta oo kugu cusub oo bilow kugu ah wuu kugu culus yahay balse marka aad ku celceliso fahanto sabirto dadaasho waxa uu ku noqonayaa wax ku sahlan oo ku fudud oo aad ku raaxaysato inaad ogaato faa'iidooyinka wax akhrisku leeyahay waxay ku sahlaysaa in aad waqti kooban isku bartid caado wax akhris oo aad u adag ku celcelintu waa shayga ugu muhiimsan ee qof kasta looga baahan yahay marka uu shay ku cusub yahay sidoo kale inaad fahanto faa'iidada aad helayso marka aad shaygan ku celceliso ama abaalmarinta aad kama dambaysta helaysaa waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee kugu qasbaya ama kugu riixaya inaad wax akhrido sidoo kale inaad la saaxiibto asxaab wax akhrida iyaduna waxay ka caawinaysaa oo shidaal ku siinaysaa in markasta oo adigu caajistaba ay asxaabtaadu noqdaan kuwa ku dhiirigeliya oo ku caawiya oo ku xasuusiya oo markaasi kula wada bal qiyaas adiga oo safar ku jira kaliya ma safar kari lahayd way kugu adkaanaysaa laakiin marka uu qof kula socdo waxa dareemaysaa wehel iyo joogtay inaad ku sii joogtayso socodkaaga haddii aynu soo qaadanno tusaalayaasha dadka ugu caansan adduunka qaar ka mid ah oo joogteeya maalin walba wax akhriska weliba oo iyagoo ah dadka ugu hantida badan leh adduunka tusaalaha koobaad waxaan ku soo qaadan doonaa hantilaha waxa weeyaan Bill Gates oo ah ninka labaad ee ugu taajirsan adduunka waa mulkiilaha shirkadda Microsoft maalin kasta wuxuu wax akhriyaa 2 saacadood mulkiilaha shirkadda Facebook ee Mark Zuckerberg isaguna wuxuu akhriyaa 2 toddobaadba buug mulkiilaha shirkadda Berkshire Hathaway Warren Buffett oo ah isaguna ilaa 40 nin ee ugu taajirsan adduunka ayuu ku jiraa wuxuu maalin kasta wax akhriyaa 5 ilaa 6 saacadood ugu dambeyn madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Hussein Obama ayaynu tusaalaha ugu dambeeya ka dhigaynaaye isaguna wuxuu wax akhriyi jiray isagoo weliba madaxweyne oo hawsha ku badan tahay maalin kasta 1 saac haddaba daawada waxaynu isweydiinaa su'aasha adigu imisa saac ayaad maalintii wax akhridaa maxaa se kaaga yaala inaad wax ka bedesho qaabkaaga wax akhris mahadsanid